السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو نقصن داوديال كسو دبادة channel يوتيوب كأصلح أبا سافي ما أنت وحن إذن وضع خسو أو جعيل خسة دانا وخسو آد أمعن بدن هذا بالآن بلاونو خسة نين كان وحالي يرى هذا علي سوح ذي مركي شقا آذايو وحو راعا بس كي أيو راعي مركي أوفريستي وحو أركي جبد آد أخروح بدن oo buug ay akhrisanayso kadib cali gabadhii wuxuu dhahay buugga miyaad akhrisanaysaa gabadhii waxay dhahday haa cali wuxuu dhahay buuggan wuxuu ku qoran yahay sheeko aad u macaan badan yahay kadib cali wuu jeestay wuxuu arkay dhinaciis wuxuu fadhiyay nin oo asagoo dhan si kale ah waa ka shikiyay ninkaani waa nin tuug ah kadib gabadhii waxay dhahday ii jooji baskawaandega gabadhii way degtay markii gabadhii ay degtay tuugiini waa ka daba tegay kadib cali waa shikiyay kadib cali hadan wuxuu dhahay baska ii jooji cali baskii waa ka soo degay waa daba raacay tuugii iyo gabadhii intii ay socoto tuugiini gadaashiis aa socdaa tuugii mar walba wuxuu gaadaa meel oo dibid ah sidii oo gabadhan boorsada uga xadi lahaa ugu dambayntii tuugii wuxuu helay boos oo firaaqa ah tuugii waxaa ka xaday boorsadii oo gabadhii كان وريا بارسنا كان دي وريا بارسنا كمش ميشان سو يا عاوية بوسيدة ليغ هذا يا عاوية ميشان تتوجهوا يا عاوية kadib markii oo boorsadii xaday tuugii waxaa imaaday cali kadib cali tuugii boorsada waa ka qaaday ugu dambayntii tuugii waa orday wuxuu orday boorsa la'aan kadib gabadhii waxay dhahday aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay maadaama boorsadan oo aad i badbaadisay kadib cali wuxuu dhahay walaashayda ee boorsadan lacag miyaa kugu jiray mise wax oo muhiim ah maxaa boorsadan kugu jiray ii sheeg bal maya abooy boorsadan lacag ma igu jirin lacag wax ka qiimo badan ayaa igu jiray ee maxaa waaye lacag wax ka qiimo badan ii sheeg bal maya boorsadan waxaa ku jiray xusuus qorkayga dhan xusuus qorkayga iyo lacagka xusuuska qorka ayaa ila qiimo weyn aniga haddii aniga aan iskaaga baro magacayga waxaa la yidhaahdaa cali anigani magacayga waxaa la yidhaahdaa niirma barasho wanaagsan niirma caawa haddaan isla soo cashayno bal ka waranba maxaa dhihi lahayd oo ka waaye waan isla soo casheegi karnaa caawa ayaan sarkeenaa markii oo habeenkii la gaaray labadooda waxay aadeen meel oo hawo macaan ah oo bad ah halkaas sidii ay soo casheeyaan labadooda intii ay sheekayno sanooyin waxaa imaaday ninkaani waxaa la yidhaahdaa khaasimni waxaa jeclaa niirmani khaasim ma jeclin kadib markuu soo fadhiistay yacnii cali iyo niirma gacantooda ayaa isfuulay gacantooda waa kala dejiyey kadib wuxuu dhahay khaasim niirma maxaa waaye adiga cayaartaan aad wadid aawo jaceylkeeni anigu waa ku jeclahay nin kale maad iga raacday khaasim jacaylka adiga aad sheegaysid maxaa waaye aniga maku jecli iga dheeraw minkan ayaan jeclahay iga dheeraw kadib khaasim iyo cali labadooda waxaa dhex maray dagaal way isdagaaleen kadib khaasim feer ayaa la dhiftay dhulkii ayuu ku dhacay haddana feer kale asagoo ugu naqi lahaa cali kadib niirma waxay dhahday maya cali iska daa qofkaan hadilin waa dhaafay niirma iyo cali way baxeen ayagoo ay socdaan khaasim intii soo xanaaqay kursi ayuu soo qaatay cali ayaa wax ugu dhiftay madaxa kadib cali dhulka ayuu ku dhacay markii dhulka ku dhacay niirma waxay dhahday cali maxaa kugu dhacay cali ugu dambayntii cali waa soo joogsaday yacnii waa soo naaxay wuxuu dhahay niirma ma i guursanaysaa kadib niirma way khosashay kadib waxaa la gaaray maalintii isguursan lahaayeen dadkii dhan way soo xaadireen dadkii dhan waxay imaadeen meeshii niirma iyo cali isku guursan lahaayeen qaadigii oo waxa nikaaxayana waa imaaday kadib labadoodii ayagoo la nikaaxooyo waxaa imaaday kii la dhihi jiray cali wuxuu soo qaatay bistoolo yacnii cali wuxuu jeclaa niirma laakiin niirma cali ma jecleen ciil dartiisa bistoolo ayaa soo qaatay kadib wuxuu dhahay niirma lagama yaabo qofkaan inaas ku arooso aawi jaceylkeena aniga waan ku jeclahay
habeenkii ma seexday jaceylkaada ay jijibiyo aniga lagama yaabo caawa qofkaan nas kula jiifto qofkaan caawa qabriga ayaas jiifanayaa bistoola baan madaxa ayaan ku dhifanayaa way igu dhacday cali kadib khaasim bistooladii waa gamay markii bistooladii oo gamay bistooladii waxay isku dhigtay niirma cali bistoolada kuma dhicin niirma ayaa meeshii bistoolada isku dhigtay iyada ayaa wadnaha ugu dhacay dadkii oo meeha ay joogeen dhan way wada naxeen way wada orteen waxaa la dhahay askar hala waco ambulaansana hala waco ambulansi ayaa la wacay ambulansigii ayaa la saaray markaasi ambulansaha intii u socdo kadib meeshii ayaa ku nafbaxday ee niirma isbitaalkaba looma gaarin ambulansaha dhexdiis ayay ku dhimatay niirma kadib cali wuxuu dhahayay ereygan niirma may haya cidlaynin mayga tegaysaa niirma waa ku baryaa hal mar la indhaha ii soo fur niirma bistoolada anaa lay waday adiga maxaad isku dhigtay niirma niirma sidaas ha igu tegin waa ku baryaa hal mar la indhahay kala soo fur niirma niirma kadib niirma sidaas ayaa ku geeriyootay waxaa laga soo wareegsaday 15 sano 15 sano kadib cali wuxuu aaday qabriga oo niirma mar walba qabriga oo niirma ayuu aadaayay waa soo ziyaarin jiray qabrigii kadib waxaas imaaday niirma aabbaheeda wuxuu dhahay cali dabeecaddan iska beddel gabar kale iska guurso yacni sidaan le maad u joogaysaa kadib cali waa baxay gurigiisa ayaa aaday niirma aabbaheedana gurihii waa ugu daba tagay kadib niirma aabbaheeda markuu arkay gurigoo isku khasan oo guriga dhan wasakh ah kadib wuxuu dhahay cali ii dhegayso saas ma ahan gabadhayda aniga waa ku siiyey waan kuu guuriyey laakiin waa la dilay saan inaad u joogtid maahan 15 sano ayaa laga soo wareegsaday gabar kale iska aroos kadib cali wuxuu dhahay aabbe aniga gabar kale seen u aroosaa har iyo habeen niirma ay hor joogtaa niirma ma hilmaami kari aniga niirma intaanan guursanin waxaan u gaday guri aad iyo aad u weyn waxaan dhahay niirma guriga waa kanay oo aniga aan degi rabno gurigaanaan iibiyey bal ka waran niirmani aad iyo aad ayaa u faraxsaneed aad iyo aad ayaa ii jecleed hami ayaan lahayn laakiin hamigeenna dhan waa halaabay aabbe sidaan aniga u guursadaa gabar kale niirma qalbigayba maka goyn aabbe lagama yaabo gabar kale ina aniga aan arooso kadib cali waxaa go'aansaday gabar kale inuu aan guursanin cali wuxuu aaday qabriga oo xaaskiisa niirma markaasi bistoola ayuu qaatay wuxuu damcay inuu isdilo kadib bistooladii waa tuuray ma isdilin waxaas dhahay haddii isdeshid faa'iida ma leh sidaas lee ku aakhirso marka cali waa baxay ma isdilin weligiisani ma aroosin gabadhaana jeclaa gabadhaan adduunka waa lagu musaafiriyey waa la dilay asagane gabar kale ma aroosin marka wuxuu dhahay cali qalbi jeceyl galay ma khuusto marka walaalahayga filimka ama qisada oo jaceylka ahaa halkaas ayaa ku dhammaaday filimkaana waxaa idiin soo turjumay walaalkiina aslax abasaafi waxaana lagu soo turjumay studio saafi oo ku yaala dalka talyaaniga gaar ahaan magaalada baadaba ha iloowina like share comment and subscribe